oday waa inuu garanayaa xaaskiisa muxuu xaq ku leeyahay maxaase isaga lagu leeyahay qaraabadeeda inuu xidhiidhiyo ayaa xaq loogu leeyahay oo aanu odhanin maxay ahaan qoladani waa aabbaha iyo hooyadii ee reer naag baa kaa raacda baa la yidhi maxay iga daba socdaa ehelkiisa inay xidhiidhiso oo aanay odhanin hay tusin hooyada aabbaha hay tusin reerkiinna hay tusin anigu waxaan rabaa nin aan aabbiyo hooyo midnaba lahayn iyo wax daba socdo toona laakiin qaarkood baa laga yaabaa inay idhaahdaan xaasku waa laga yaabaa aniga iima dara laakiin ehelkayga u fiicantay mar hadday ehelkayga u fiican tahay ama ubadka u fiican tahay anigu waxaan doonaba aan ku qabe waan u samrayaa an yacrifa kullun minhuma alxuquuqa waalwaajibaat labadooda mid waliba waa inuu gartaa maxaa waajib saaran muxuuse isagu xaq leeyahay ooridu waa inay garanaysaa ninkeeda maxay xaq ku leedahay oday waa inuu garanayaa xaaskiisa muxuu xaq ku leeyahay maxaase isaga lagu leeyahay waa casharo u baahan markay isguursadaan labadan qof inay qaataan oo sidooda ay u qaybaan oo ay dhaqangeliyaan mararka qaarkood baa waxa dhacda qofku inuu qofkan kale ku qabsado waxaanu xaq ugu lahayn ama uu dafiruu diido wax waajib loogu leeyahay taasina waa arrin qoysku inuu sii jiro sababu noqon karta ilaahay baa wuxuu uhi walahunna midlu aladii calayhinna bilmacruuf walilrijaali calayhinna daraja labadii qof inay xaq isku leeyihin baa ilaahay uu tilmaamaya ragguba mid dheeraada ha lahaado darajatu takliif bay u badantay waa kuwa idhaahda culimmadu ninkiina xil baa saaran ooridiina xil baa saaran xilka raggaase sii weyn xagga xurma ahaan waa laga yaabaa mararka qaarkood laakiin xilka raggaa sii badan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وحلكي صارنا با إلهي وشاقة دمرك حلكي صارنا يهوشو تالينا وحر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ودمرك يقول أقبل كان يا إلهي وكو أماني نحا قرآن كو شاقة يا الرمان سيدا درادد وعشراء آذو بهاني اللو دراسي xuquuqda qaar ka dhaxaysa jirta iyo qaar raggu ay gaar u leeyihiin oo ninku gaar u leeyahay qaar xaasku ay gaar u leedahay iyo qaar ay caruurtu labada waalid ku leeyihiin ama labadooda waalid haday la joogaan ay caruurtooda xaq ugu leeyihiin midalan tusaale weynu dadajinaynaa xuquuqda ay xaasku ninkii ku leedahay waxa kamid ah meherkii mar alla markii la meheriyay ee la guntay ayay meher yeelatay aqadka xalaaleynta ah ayaa waajibiyey waaatu nisaa saduqaatihinna nixla ilaahayna geedkii ragga la odhan jiray wuxuu faray inay dumarka siiyaan xaqooda oo meherkaas waxay xaq u leedahay nafaqadii waynagaa soo akhriyeen liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq bima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusra hay'adda ilaahay wuxuu kaga warramayaa qofku wuxuu hayo inuu ehelkiisa siiyo waa raggi haddii arrinku adagayna ilaahay baa ku dabcin doona ee waxba ha ku la jeclaabin oo ha ka haysan waxa kamid oo raggi lagu leeyahay xaasku ay leedahay xusnul ishra inuu si wanaagsan ula dhaqmo oo qofkan qalbigiisa iyo dareenkiisa iyo moralkiisa iyo jacaylkiisa iyo intaba inuu ilaaliyo waashiruhunna bil ma'ruf ilaahay baa amar ragga siiyo wuxuu si wanaagsan ula dhaqmo dumarka si wanaagsan ula dhaqmo waa arrin dhaafsan galma iyo gasiin iyo gogol iyo dhar iyo dhuun iyo waxa way ka dheertay waa qofkan oo lala noolaada fil afraax wal ahzan murugada farxadda isla jaan qaadi karo waxay xaq u leedahay cadaalad hadii dumar uu wada qabo mid ka badan waxay xaq u leedahay tarbiya oo qofkan ninkii inuu tusaale wanaagsan u noqdo ooridan markuu soo guursaday ودقك وناكسني عدالة إيه رنت إيه عبادة إيه دينت إيه علمك إيه أرمى وين كل رباعية حلقة بدأ إن كذا أجنيس وإن أنعصب إما كي صابرت سجل دي بدتشين كل صماينية مركا سيدو قلب النقطة على جياعة إن يدون النقط مركا وإن وقفك هرمود النقطة وصفي عنه رباعية دفاع بقى حق لو أقول له دفاع وصلت ديسا عدي الظلميسا
cirdigooda iyo sharaftooda xudhimaysa ku soo duulaysa shisheeye sokeeyaba inuu difaaca isaga xaq lagu leeyahay silatu rahimiha qaraabadeeda inuu xidhiidhiyo ayaa xaq loogu leeyahay oo aanu odhanin maxay ahaan qoladani aabbaha iyo hooyadii reer naag baa kaa raacda baa la yidhi maxay iga daba socdaan way ku daba soconayaana waa aabba iyo hooyo kale kuu soo biiray ehelkeeduna waa ehelkaagii xageed kaga tegaysa waaba koox cusub oo kuu soo biirtoo laga yaabo inay kugu biiriyaan waxaan reerkiinnuba kugu biirinba arrimaha toddobada waa kuwa u waaweyne xuquuqda iyadu leedahay xaqa uu ninku ku leeyahay haddaynu u soo noqonno shantana u waaweyn adaaca aqbalkeen oo dee qoyskan shuraakada ah ee nolosha wada way wada tashanayaanoo arrimaha way hinjinayaanoo hareeraha ay haayaan tasawaju lwaluud alwaduud nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dumarka guursadata ninkeeda jecela dhalaysa macnaha dhalmada badan buu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa ubadkuna waxyaabaha jacaylka keenay ka mid yihin ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إنه مدبك كلا نحريس يتشعيل لما ضاب سبوائنا وضا صعلاني نحدو ديالان حفظي بقى لو قبائن حفظ الشيء أقل كيبو بحايو أرساقات دي بودوني حلاشا هيدو بعدك يبرفكو مريا حلكا علوص باصارا يدنا حفظي بقى لقول لي حافظات للغيب بقى إلهي marka nafteedii bay ilaalinaysaa ubadkii adduunkii aqalkii amaaradii bay ilaalinaysaa tarbiyatul awlaad sidoo isaguba rabaayada u qaabilsanaa qaybtiisa iyaduna waa madrasad dhan waa tii ubadka rabaynaysa soo saaraysa inay iyaduna sida ay u dhashay ay ugu rafaaday waa inay aqligooda iyo caadifadooda aqeedo wanaagsan iyo cibaado ilaahay ku soo kabcisaa caruurta marka tarbiyada ubadkana inay tuurtay ka dhaqaajiso xaquma lahayn inay qaybtii kaga aadanayd soo rabayso silatu ahli waxa iyaduna sidoo kale ehelkiisa inay xiriiriso oo aanay odhanin hay tusin hooyada aabbaha hay tusin reerkiina hay tusin anigu waxaan rabaa nin aan aabbiyo hooyo midnaba lahayn iyo wax daba socdo toona ha odhanina ilaahay waxaad ugu cibaadaysataa oo aad ilaahay ugu dhawaataa samafalka aad ninka ehelkiisa u samafalayso markaasuu jacaylkii uu adiga kuu qabay iyo farxaddii iyo nasashadii kugu nasanayay wehelkii markaasuu badanaya ragga qaarkood baa laga yaabaa inay idhaahdaan xaasku waa laga yaabaa aniga iima dara laakiin ehelkayga u fiicantay mar hadday ehelkayga u fiican tahay ama ubadka u fiican tahay anigu waxaan doonaba aan ku qabe waan u samrayaa iyaduna asaas oo kale marka waa in si guud marahun baynu u sameynaa ama aynu dadajinaa xuquuqdaas baa ugu muhiimsan kuwa ay ninka iyo xaasku isku leeyihiin istimtaaci baa isaguna kamid oo labadooda ka dhaxeeya oo midiba kan kale inuu asturo oo galmadii iyo raaxadii ka dhaxaysay inuu midiba ka kala asturo waxyaabaa la isu guursadaabay kamid tahay gudashada hamadu marka inaan hakrasha imanin oo iyaduna diidin isaguna aanu diidin oo labada qof raaxadooda ay qaataan sharcigu u xalaaleeyay ila maqaasida guurka laga leeyado waa 10 kale waa in la xaqiijiyaa xuquuqdiina waa kamid marka labadan arimood u dambeeyay labada qof inay istoortaan xuquuqdana ilaaliyaan muqawamaadka horeynu soo sheegnay waxyaabaha asaasiga ah labadaasay soo hoos galayaan idan waxaynu arkaynaa baabkan inaanu baab fudud ahayn marka in arimahan la ilaaliyo sida sharcigu u dhigay daliiladaasi nabarayaan loo ilaaliyo waxaan rajaynaynaa inaynu cid walba ka ilbaxsannahay oo cid walba aynu ka xadaarad badannahay oo cid walba aynu ka dixiinsanno aynu ka dabacsannahay oo inaanu baahnayn dad kale oo shisheeye ah inaynu nidhaahno kuwaasaa romaansi lahiyo kuwaasaa sidan yeela oo aynaan waxba afka ku sii taagin kol haddaynu qaadanno nidaamka wanaagsan islaamkeennu inoo dhigay waxa cabashaahee maanta jiraa way yaraan lahaayeen